of Islamophobia in America, for me, that's why it's important to show up. It's like I'm in Dubai and I'm having fun and I'm tweeting and I'm showing pictures. Hey, doesn't look like they hate me, does it? maalinba maalinka ka dambeeya waxaa sii kordhaya weerarka ay warbaahinta reer galbeedka ku hayaan diinta islaamka si ay tashwiish ugu furaan suurada islaamka dadkana u necbeysiyaan gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka. laakiin dhanka kale waxaa jira jilaayaal iyo shakhsiyaad caan ah oo si aad ah u difaaca islaamka dadkana u soo bandhiga suurada dhabta ah ee islaamka. muuqaalkan waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa jilaayaasha ugu caansan Hollywoodka kuwaas oo si aad ah u difaacay islaamka. sidoo kale jilaayaashan ayaa qaatay mawaaqif iyo go'aamo geesinimo leh oo ay ku difaaceen kuna taageereen islaamka. qaar ka mid ah jilaayaashan ayaa dhibaato u soo gaartay difaacidda iyo garab istaagidda muslimiinta. balse intaan u guda galin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saar, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeen ugu dambeeyay. sidoo kale like saar muuqaalkan iyada dhiirigelin noo ah. mahadsanid. George Clooney taageerada uu carabta iyo muslimiinta u muujiyo fanaankan ma ahan mid ku xiran in uu guursaday gabar qareen muslim ah asal ahaan ka soo jeeda carabta, laakiin waxa uu leeyahay taariikh fog oo ku qotonta weeraridda siyaasiyiinta qaabka daran ee had iyo jeer weerarada cunsurinimada leh ku dhisan ku soo qaada muslimiinta. sidoo kale fanaankan inta badan waxa uu ka soo horjeestaa fikirada ah in muslimiinta lagu safeeyo argagixiso. mar uu ka qayb galayay barnaamij ka baxay telefishin waxa uu ku baaqay in laga digtoonaado dhaqdhaqaaqyada cunsuriyiinta ah ee ku kacsan islaamka. shakhsiga kale waa aktarka Will Smith. jilaagan reer Mareykan ee aadka loo jecel yahay waxa uu ka mid yahay jilaayaasha aadka u difaaca islaamka. sidoo kale waxa uu saaxiib aad ugu dhow la ahaa Allah u naxariistay feeryahankii caanka ahaa Maxamed Cali Kalay. waxa uu matalay filim ka sheekeynayay qisada nolosha Kalay. Will Smith mar uu ka qayb galay barnaamij TV Dubai ku yaal waxa uu si aad ah u dhaliilay siyaasadda Donald Trump ee ku aadaneed xanibaadda uu saaray qaar ka mid ah dalalka islaamka in aysan soo gali karin Mareykanka iyagoo lagu eedeynayo cunsuriyad. waxa uu sheegay in ay daliil u tahay in tuhunadaas ay yihiin been, sababtoo ah isagaba intii uu ku sugnaa Imaaraadka gaar ahaan Dubai oo ah dal islaam ah uusan la kulmin sinji faquuq iyo nacayb. shakhsiga kale waa jilaaga Van Damme. Van Damme waa aktar caan ku ah filimada actionka. dhowr mar ayuu ka dhawaajiyay jaceylka uu qabo islaamka, waxa uuna had iyo jeer garab istaag iyo taageero u muujiyaa muslimiinta lagu midabtakooro Mareykanka iyo Yurub. mar gabar wariye carab ahayd weydiisay qaabka uu u maareeyo jadwalka cuntadiisa, waxa uu ku jawaabay in uu raaco suluukiyaadka iyo habka cuntada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale waxa uu jiilka soo koraya ku booriyay in ay raacaan akhlaaqda iyo suluukiyaadka Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale habka isku dheelitirka cuntada. Ashton Kutcher isagana waa mid ka mid ah jilaayaasha Mareykanka ugu caansan. sidoo kale wuxuu qayb ka yahay jilaayaasha difaacaya islaamka, gaar ahaan xanibaadda uu Trump ku soo rogay qaar ka mid ah dalalka islaamka. mar la guddoonsiinayay abaalmarin waxa uu kelimadiisa ku bilaabay sida uu uga xanaaqsan yahay una mucaaradsan yahay go'aanka madaxweyne Trump dhowr dal oo islaam ah uga mamnuucay in ay soo galaan Mareykanka, taasoo sababtay in dhowr qof oo muslim ah lagu xiro garoomada diyaaradaha Mareykanka loona diido in ay gudaha u galaan. Ashton Kutcher waxa uu muujiyay sida uu uga xun yahay go'aankaas, wuxuuna garab istaag iyo damqasho u muujiyay muslimiinta la cunsuriyay. Lindsay Lohan waxaa soo shacbaxay warar sheegaya in aktaradan reer Mareykan ee caanka ah ay qaadatay diinta islaamka, gaar ahaan markii laga soo qaaday dhowr sawir iyadoo wadata kutubka Quraanka Kariimka, sidoo kalena xijaaban xilli ay ku sugneed dalka Turkiga. Lindsay Lohan waxay ka dhawaajisay siday ula cajabtay diinta islaamka iyo dareenkeeda ku aadan sida ay deganaan iyo raaxo ugu dareento markay ku dhex sugan tahay muslimiinta, gaar ahaan xilli ay fasax ku joogtay Turkiga. sidoo kale waxay ka dhawaajisay siday u jeceshahay maqalka aadaanka salaada. sidoo kale waxay qiratay in ay waqtiyo badan akhriso Quraanka Kariimka, mana fogeyn in hadafkeedu yahay in ay waqti dhow qaadato diinta islaamka. waxay si aad ah u cambaaraysay dhibaatooyinka iyo xadgudubyada ay la kulmaan dumarka xijaaban ee ku sugan Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Angelina Jolie waa mid ka mid ah atiriishayaasha loogu jecel yahay Hollywoodka. sidoo kale waa safiir UN-ka u qaabilsan arrimaha nabadda iyo qaxootiga. had iyo jeer waxay soo muuqataa iyadoo difaacaysa islaamka. waxay si aad ah u diidaa dulmiga iyo ololaha ka dhanka ah islaamka. waxay tiri
caalamka waa in ay meel ugu soo wada jeestaan dulmiga iyo beenta. Carabta iyo muslimiintana ma ahan argagixiso. waxay booqatay dalalka Afghanistan, Bosnia, sidoo kale waxay booqatay xeryaha qaxootiga Lubnaan, Jordan iyo Turkiga oo ay ku jiraan qaxooti badan oo reer Syria ah. sidoo kale mar la weydiiyay sida ay u aragto kooxaha xagjirinta Kirishtaanka ee guba kutubka Quraanka, waxay muujisay sida ay ugu soo horjeedo, waxayna jawaabteeda noqotay maya ma awoodo in aan helo kelimada aan ku cabiro kuwa guba kitaabka Quraanka Kariimka. haddii aad ka heshay muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada, sidoo kale like saar. mahadsanidin.